لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، وسورة البقرة آية لحية ستيتا. قال الله تعالى: ألا وحر أولئك كواسي الذين كويوي اشتروا يبسدي الحياة الدنيا noloshan adduunyada bil aakhira bitarki aakhira aakhira iyagoo ka tagaya falaa yukhaffafu canhum lagama fududaynayo alcadaab cadaabka aakhira lagama fududaynayo walaa hum yunsaruuna loona hiilin maayo. walaqad aataynaa muusa alkitaab, nebi muuse dhabnimo waxaanu siinay buu ilaahay yidhi kitaab ilaahay uu ku soo dejiyo towraada. وقفينا وحن راعيني من بعده النبي موسى دبدي بالرسل رسولان كذب جينا استبس عدي. واتينا عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم وحن النبي لهي البينات معجزين على العط. وأيدناه بروح القدس وحن كحوتشني ملك الله إلى ملك الجبريل. أفكلما جاءك مركز تويدي ما در بنو إسرائيل أو رسول مركز تويدي ما ده بما لا تهوى أنفسكم وحاني نفتي نتشعلين مركز لا يماد استكبرتم وايس وينيسين ففريقا كذبتم غيبوا بينيسين رسول الله وفريقا تقتلون قلنا والله نيسان. وقالوا وحي هذين بنو إسرائيل قلوبنا غلف قلبي يضو ويدبولين بل بلهيد ما دبوله لعنهم الله بكفرهم إلهي وحي كفر كنا عضلي قال لماذا يسميين فقليلا ما إن يرى آذو يربى يؤمنون إلهي الربينية وإيمان الآن دور كآية ضوضبا وحي صوبا لغيان عذر هذه كل عي ummadaha inaga horeeyay reer banu Israa'iil cudurka cid ku dhacay marka lagu sheegana karantiime iska gali way oo ka feejignood ha ka qaadin yuu ku saraynin. inaga naqaano meel marka cudur ka dhaco qolada caafimaadkuna ka digaan dee dadku kuma degdegaan. inaga karantiimeeya baa la halkaa way karantiimeysay ilaahay baa karantiimeeyay cudur la qaadana ka diin la'aanta ugu daran. cudurkooda oo horeeya waxa weeye adduunyo iyo aakhiro. aakhirada marka laga warramayo macnaheedu waxa weeye jannada. aakhiro waxa u taagan hadda jannada la shariya khayrba xagaas ku dambeeyaa jannada nicmada adduunyada iyo ta aakhiro marka la isu barbar dhigo iyagu waxay qaateen nicmada adduunyada tii aakhiro weyn laaween way isku iibsadeen waliba. arinta natiijadeeduna waxa weeye inuu ilaahay cadaab ku awaal mariyo adoomaha oo aanu ka fududaynin oo cid u hiilisana aan la arag. la yukhaffafu canhum alcadaab wala hum yunsaruun. cadaabkiisa ilaahay dadka adduunyada doortay aakhiradiida wuu ku cuslaynaya cidina ka fududayn mayso. waa ceeb weyn markaa insaanka hanka yarba adduunyada ku hawlan oo kaligeed u orda. insaanka hanka weynina ee aafaaqdiisa iyo aragtidiisa iyo iimaankiisa uu sareeyo wuxuu aad ugu hamiyayaa intuu ilaahay ka raali noqdo inuu jannada helo. inta ilaahay ka sokaysa wax qancinaya ma jiro. idan haddaynu wax yar ka tilmaano alfarqu bayna mataaci dunya wa naciim alaakhira dhowr qodob baynu ka soo qaadan si aad u fahamto wuxuu ilaahay noo sharaxayo. متاع الدنيا نعيم الدنيا أوران ماينو لكن هو متاع الدنيا وأري بحنت القرآن كنا بريه الدنيا ده سابان كده يرى أيامها الله يستو هي النعمة وين آخرة دنبايس فروق وحياة وحول الحياة أنا إسبربر إيمان كريم فرق جوهر يوامد ابتلاء وامتحان يوم وحوي متاع الدنيا مشهودة والنعيم الآخرة موعودة. alaabtan yara adduunyada waa mid la arkayo ta aakhirana waa mid la ballan qaaday.
ummad badan bay markaa taasi ibtilaysayoo dee indha ku garaadla ah oo tan yare macmacaankee u muuqanaysuun bay leeyihin tanaabay noogu dhantay dadka laakiin aragtida dheera indheer garadka ah ee iimaanka lihi taa ilaahay u ballan qaaday bay ku kalsooyin oo ogyihin tan inay ka qiimo badanta waa tamyiis si dadka lagu kala saaro wey taas farqiga nicmada aakhira iyo tan adduunyadu xataa haddii laguba siiyo ay leedahay waxa weeyaan mataacu dunya qaliil siduu qur-aankaba ilaahay uu ku caddeeyey nicmada adduunyadu waa wax yar qul mataacu dunya qaliil waalaakhiratu khayru liman ittaqa nicmada aakhirana waa mid khayr badan nicmada adduunyadu waa in yar balma qaaradaha waxa yaalloo dhan laysugu kaa daro rasuulku wuxuu inoo caddeeyey sala allahu calayhi wasalam qofka ugu janno yar waxaa la siinayaa ka ugu janno yar weeye ee gadaal naarta ka soo baxaye markii u dambaysayna soo galay jannada adduunyada waxa yaalloo 10 jeer lagu dhuftay adduunkan waxa nicmo taallo oo dhan baa 10 jeer loo laabaya oo laakiin tan ka duwan marka qaliilkaas waa farqi jira weeysna furuuqda waxa kamid ah waxyaabaha ku kala duwan yihiin waa naciimul aakhirati afdal min haythu an-naw' nawciyada marka la eego soomaad maqli jiray alaabtan adduunyada waa shay koobiya iyo waa original waxay imika fasakhmaya iyo wax asalade waxa asalo 5 sano jiraya iyo shay jiraya 5 bilood baa imika la wada iibiyaa muuqaalka isu eg China iyo ha u badnaadeen meelaha waxay ka soo waaridaan waaye alaabtan alaaba salama expire-kiina wuu ku badiyay liibixina wuu ku badanyay dhicitaankiina waa ku badan laakiin halka waa asal nabi maxamed wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam mawdicu sawt in uu la dhigo jannada aba adduunka waxa yaalo dhan ka khayr badan dumarka jannada mid kamid ah haday adduunka soo eegto caalamkan qaaradihiisa kala duwan waanu udgoonaanaya waanu iftiimaya islaanta halkan noocaas halkan laga helayaa waati ma jirto mid ku dhawaanaysa waxa soo dhacada oo dhan hadii la isu keeno wax caalamka udgoonaynaya ma jiro alaabtii baa waxyaabaha kala duwan nicmada adduunyada ta aakhira waxa weeye gaaladu isku iibsadeen aljannatu khaliyatun min ash-shawaa'i jannadu waxa qofka ka xumeeya nicmada way ka marantay hadii adduunyadana iskaba barwaaqaysan tahay dhagahanay kaaga baxay القرآن كأكسو شرحيه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما دنبنا ما مغليان هذا البلا معنانا ما مغليان لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لغونا مجره بيننا مجرته لا فيها غول ولا هم عنها يزفون نوعي الكل كالورن جرى لغو سخرام جرى إيو nacnacadii khamriilaha iyo wixii ma jiraan imika hadii adduunyadan mid iska madax yahay mid iska barwaaqaysan yahay maalin walba idaacada wax ka xanaajinayaan qaar baa ku ciyaaraya qaar baa sanka ka marmaraya qaar baa dhagaha ka qaylinaya sariirtiisu ku mashquulsan yahay isagoo raaxaysanaya dhagaha looga bixi maayo waayo dadkii baan iskhilaafsanayn oo quluubtoodu waa qalbi kaliya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ma murmaana tasbiix ilaahay bay wadaan bukratan wa cashiyan sidii xadiidkii saxiixaynka sheegay nicmada jannadu waa mid baaqiya ama daa'ima nicmadan adduunyaduna waa mid zaa'ila bal adigu isbarbar dhig wax weligiiba jirayay iyo wax ayaama ku dhamaanaya alla wuxuu subhanahu wa ta'ala ma cindakum yanfad وما عند الله باق حل وحا هيسامو مرانيا الله اكتيسا وحا يالانا ودائميا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أنا قلت جنة يدي وتاسا صوبا دغاي بو لهي دمانا دمانيسو بل ادوغو ها ku xiiqin hadaba wax ama aad ka tagaysa ama ka tagaya nicmada ama aad ka tagaya ama iyada ka tagaysa taajirki isagoo iska taagan baa maalkii laga cayraynaya oo faramadnaanaya ama iyadoo maalku camiran yahay xoorinayo ayaa laga dhax qaadaya jinaasadiisa furuuqda waxa kamida ay ku kala duwan yihiin alaabtan adduunyada haddaad u camal fashood aakhiro ilowdo waa cirib xumo iyo ciqaab laakiin alaabta aakhiro haddaad u camal fasho saasa loogu aayaa aakhiro kaliya haddaad imika u camal fasho oo adduunka bay iska dayso gaajo kaga noolaato farxad iyo rayn baa ku dambeynaysa laakiin haddaad aakhiro iska ilowdo oo adduunka kaliya aad ka shaqayso فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون باكو دنبيس
marka waxyaabahaas oo dhan waa furuuqda waxa ugu sii cajiibsan dee halkaa duruufta halkan taalla ama taalo qofku hadduu halkan iskaba nicmaysan yahay xataa duruuf adag baa hor taalla waxay odhan jireen hadday geeri ku dayso gaboobaabaan ku daynayninba kii madaxda ahaa kii maalqabeenka ahaa kursigii baa laga soo dulqaadaya isagoo dhareerinaya hadda nicmadiisiina way ag taallaaba waaba laga dulqaaday uu hadli karayaa soomaad maqlayn ayaamaha madaxweyne hadliba kari waayeba dabeetana kursigiinbaa asbaxa kawmatan min ashaxm wuxuu noqdon kuus xaydha dabeetna kursigaa dhinacaa looga duway marka hadduu geeridii kaa yaro dib dhacdo gabowgii baan ku daynaynin cudurkii baan ku daynaynin cabsi iyo murugaan ku daynaynin oo labada dadkiiba dhibay ah warwar waxaan ku daynaynin oo ku dhibaya wixii fudalaadka la odhan jiray saxaradii kaadidii dhiiggii waxaasaa dadkii waxaasoo dhanba ma laha beesho waxa uguba sii weyn oo furuuqda ugu cajiibsan aakhiro waxay leedahay jannada marka la tago allahayna geeye waxay leedahay laba arrimood aan adduunka lagu haynin oo in ilaahay la arko uu kaana raali noqdo in ilaahay jannada lagu arko aan adduunyada lagu haynin isla markaana uu ka raali noqdo qof adduunkan uu ka raali yahay ilaahay oo raali noqoshaha loo ballan qaado la isku hubaa waa mid daliil sheegay ambiyada ilaahay saxaabadii jannada loogu bushaareeyay ma badna laakiin qof kastaaba wuxuu leeyahay tolo maxay ku dambayn qof kastoon daliil u sheegin inuu ahlu janno yahay ama ilaahay ka raali yahay warwarkaa ku badan ilaa uu taabanayo jannada inta ka horeysa warwar buu hayaa ilaahayna adduunyada laguma arkayo jannada unbaa lagu arkaya marka haadihi lfuruuq arrimahaasoo dhan waxyaabaha jannada iyo ku kala duwan yihin nicmadan adduunyadu weeyaane dee yaynaan xiiqin oo meesha nooca u maran yaynaan ku xiiqin si aynaan u daalin alla subxaanahu watacaala wuxuu ka warramay haddaba nimankaa adduunka ku daalayoo wuxuu ilaahay tilmaamay wixii toosin lahaaba inuu siiyo kitaab baan siiyey buu ilaahay kitaab waa nebi muuse kitaabkii loo soo dhiibay weliba rusulna waa loo soo diray nebi muuse keligii aan ahayn rusushii badnayda ka dambaysay yuushac iyo yasac iyo nebi daawuud nebi sulaymaan nebiyullaahi ciisa oo ilaahay halkan uu ku sheegay intaasoo nebiyaaloo isdaba yaallay isdaba socday waxay sheegaysaa inuu ilaahay u xujo dhameeyey subxaana wa tacaala nebi ciisena bayinaad baan siiyey bayinaadku waa mucjisooyinkii yaabka lahaa had iyo jeer khawaariqulcaadaha ahayd dee rasuulkaa isagaa lagu ilaahay uu ku qancinayay in dadku ay rumaystaan inuu rasuul yahay dee dadkoo uu soo nooleeyaa ay ka mid ahayd iyo dadkii bukaya uu bogsiinayay iyo kuwii cudurrada qabay iyo qur-aanku siduu caddeeyey ruuxulqudus ayaa ilaahay uu ku xoojiyey oo barbar taagnaa malakuljibriil waa magacyadiisuu ka mid yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siduu ku caddeeyey xadiidkii saxiixa waxaa gabayaagii rasuulka uu ahaa xasaan binu haabit ayuu ahaa xasaan ibnu haabit markuu gabayayo gabayadiisii waxaa ka mid ahaa wa ruuxu lqudsi waxa uu ka mid ahaa jibriilu rasuulu llaahi fiina waruuxu lqudsi laysa bihi khafaau malakuljibriilna waana dhex taagan yahay oo uuna garab taagan yahay ilahay baa nagu xoojiyey waruuxu lqudsi laysa bihi khafaa mana qarsoono malagaas iyo awood ta'yiidkiisa iyo xoojintiisu ma qarsoona nebiguna wuxuu odhan jiray allahuma ayitu biruuxi lqudus ilaahu malakuljibriil ku xooji marka waxay caddaynayaan inuu magacyada malaga ka mid yahay magacaa isaga ahay ruuxu lqudus dee cidda isberber taagaana iilan mayso dhaqankoodu waxa weeye afa kulamaa jaa'akum rasuulu bimaa laa tahwa anfusukum rusushii baa imanaya waxay la imanayaan waxay reer banu israa'iil necbi ilaan gaal diin lama agmariye diinta islaamka gaal wuu diidan yahay markaasay isweyneeyaan nebiyadiina qaarna way laayeen qaarna way beeniyeen culimadu waxay leeyihiin labada ficil midi waa maadi midna waa mudaaric ka hore waxa weeyaan fariiqan kadabtu qoro waa layseenoo dee waa nebiyadii badnaa qolona waa disheen waa dilaysaa dilkii baaba weli sii socdaba mar hadduu ficilku mudaaric yahay weli wuu socdaa dilkii oo rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay isku dayeen inay sunna ku dilaan sixirna ku dilaan maalintii khaybar gabadh baa soo samaysay neef fadhiyahoo sunbay soo mariso markuu nebigu dhadhamiyey ayuu iska dhigay oo ilaahay u digay subxaanaه wa tacaala
ويرى وحول ناف كان مصنع استنا هابيدا محاك اللي في دي هذا الرسول تينا وحنا وجينا أنا كدبين هديك لا ينقابنا السنابان دونين مركا رسول صلى الله عليه وسلم مركو سيدي من أيي وكيلها ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع أبهري ولو أن دريمي صنتي مالنتي خيبر لإسيي وأن دريمي لكن هذا أيها البولها يقول النبي لها عليه الصلاة والسلام أنا استوحوا لها مركو النبي وأفكا يرك لقاده لبتقليه إنسان كاركتر راتكي كوسا ميسي سنتاس إذن قال يا عدواكم مقين أولياء إلهي استاذ دراديد باطتك وقفض لك بضاء ومضا نبي محمد أن أركينا عليه الصلاة والسلام أبو بكر نسا سوك لوا سنتا سال قد لي حسن بن علي سجن سنتا سال قد لي عمر بن عبد العزيز سنتا سال قد لي عمر يا عثمان يا علي نديك عن بالله قد لي مركوارك واكم مقيه أولياء إلهي لكن وحلو تحكي لنا يا ابن هاي شهداء لذلك برسول صلى الله عليه وسلم وحيليه علماء إلهي وحوت شمعيي نبي نمدي يشهد نمدي وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قال لماذا ذي با إلهي وكنا عرفت قلبك أغلف كاهي وضبول وتشيس يا كبر ورها يقول دالي وحد مرسينا يسامت شري ومنتهى العناد قلبك سوى الدبولين إلهي نونا عضلات ما ذو سكسلية التوكيد بين قنيسا فقليلا يؤمنون فقليلا ما يؤمنون إن يرى هذه يا ضياء كما عليه ذو حوية إيمان ير هدي ليلي سقابان شريمبا نافينا وين نقول كرتها فقليلا إن يرى يرنا ما يؤمنون مر مينيا ولما جاءهم مركوي من كتاب من عند الله كتاب إلهي أكتي سكين وقرآن كان مصدق لما معه كأي هايستانا الرمينيا ووافقسا وكانوا وحيا يهود من قبل انتانوا كتاب كان إيماننا يستفتحون قرقار وحي ويدي سنشرين على الذين قرقار وحي إلهي كويدي سنشرين على الذين كفروا كوا قال هذا يورنشرين إلهي ونوغهين فلما جاءهم مركي يهود ما عرفوا به رسول كي قرنيين يكتابك كفروا به ويكقالوا بين فلعنة الله نعدش إلهي يفوقينت إلهي على الكافرين قال هذا دشوا ذا يهات قال هذا دشوا ذا القرآن الكريم كا إلهي وحكو حسيال كان يهود وحيابها أي عانك كويهم وحكم ذا أمانة درهضة وقدر وحتى حق الدين تدوية ذا وحبكسي درنبة الدين خيامة الدين marka iyaga oo marxaatiya oo og nabiga kaleey salaatu wasalaam marxaatigiisa oo marxaatiga quraanka og oo wada haya cadaynihi ay qariyeen markay madiina degeen reer bani qurayda banu nadiir banu qaynuqaac waxay oran jireen halka waxaan ku sugaynaa rasuul u soo hijroon doona istinsaar istiftaax wa istinsaar yastaftixuna bimaana yastansiruna إلهي بين نصر ويديسن جرين waxay oran jireen kuwan gaalada imika aanu saysanay reer Madiina maalintaanu ka adkaan doonaa waxa weey Ilaahay nooga helin doonaa markuu soo baxo rasuul kitaab sida oo aanu isku waafaqsanahay markuu yimaado ayuu Ilaahay kuwan nooga helin doonaa markaasaanu ka garabsan doonaa وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا kuwii mushrikiinta ahaabay nasri weydi iyo Ilaahay oo nasri naga sii kuwa oran jiray aanu ka adkaano markaanu helna kitaabka iyo rasuulka nimankii halka taagnaa markuu nabiga u yimo ma arafu bihi ma waxay koobsanaysaa nabiga iyo kitaabka qor hadii la oran la rasuulku uu ka bixi lahaa laakiin waxay sheegaysaa falamma jaahum markuu yimi maxay ma arafu bihi waxay garanayeen waa rasuulkii waa calaamadihiisii وقرآنك كريم كها ووقتك صوب حيي وعدك صوب حيي وماشو إيماني انتما إلى مجال نخيل بدن أو عين كاي عين كاس إنه إيمان وهي وحآيات إنه فايدين يصدق النوع عاصر رقم إيمان الآن تأكل تاجن إن أي حق هاي لا نعبره فلعنة الله على الكافرين ميوعد يا متميعي
ciirciirkii muslimku hadda wuxuu keenay in la yidhaahdo waxba yaan gaalada la nacdal ilaahay baa iyagaba abuurta waa ilmo aadan khudbadaha iyo ka daayaha nacdaline wasoo kan ilaahay nacdalay adigu haddaad ka daysid dee ilaahay baaba nacdalay falacnatu llaahi cala alkaafiriin qur-aanku aad buu ugu soo celceliyaa in badan baynu soo arkaynay bal lacanahum allahu bikufrihim faqaliila maa yu'minuun culimadu waxay xusaanay u badan yihiin uun kaafir ama gaal mucayana oo shaksiyadiisu mucayan tahay un in aan la nacdalayn leanna ma garan karno inuu ilaahay hanuunin doono islaami doono haddii aan dee la ogeyn inuu gaalnimo ku dhinto taasi waa gaal wallahu subxaanaه wa tacaala aclam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد وسورة البقرة تفسير كيدي آيات السقاشة قال الله تعالى إلهي baa wuxuu ihi bi'sa maa shay baa xumaaday ishtarow bihi anfusahum naftooda ay u bedel qaateen waa an yakfuruu inay ka gaaloobeen bimaa anzala allah ilaahay waxayguu soo dejiyey bagyan iyaga oo gardaroonaya an yunazila allaahu ama xaasidaya an yunazila allaahu inuu ilaahay soo dejiyey min fadlihi dheeraadkiisa calaa man yashaau ciduu doonuu ku soo dejiyey dushiisa min cibaadihi addoomihiisa taasay xaasidayaanay ka xun yihiin ay ka dagaalansayin fabaa-u waxay xambaarteen yuhuuddu biqadabin calaa qadab cadho cadho saaran walilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday sidoodaba cadaabun muhiin cadaab dulleeya waidaa qiila lahu marka lagu idhaahdo yuhuudda aaminuu rumeeya bimaa anzala allah ilaahay qur-aankan uu soo dejiyey rumeeya qaaluu waxay odhanayeen nu'minu waxaanu rumaynaynaa bimaa unzila calayna kitaabkiina lagu soo dejiyey towraad wayakfuruuna bimaa waraa'ah waxaanay ka gaaloobayaan qur-aankan ka dambeeyey wa huwa alxaqu waa kii sugnaa la raaciyey musadiqan isagoo rumaynaya limaa macahu kitaabkay haystaana inuu xaq yahay buu sheegaya qul waxaad tidhaahdaa falima taqtuluuna maxaa u leynaysaan haddaa ambiyaaa allah nebiyadii ilaahay min qabl horay maxaa u layseen un weeye macnuhu in kuntum mu'miniina haddaad rumaysan tihiin nebiyadaa iyo kutubtaa maxaa u disheen dilkaasi wuxuu sheegayaa inaydaan rumaysnayn been sheegaysaan bi'sa ma shtarow bihi anfusahum hadday adduunyadii bedel qaateen iimaan la-aanna way bedel qaateen markaa badeecadaha yuhuudda waxaa ka mid ah inay iibiyaan diin la-aanta diin la-aan bay dadka ka xaraashaanay ka iibiyaan waxay aada ugu dadaalaan dadku inaanay iltizaam diiniya yeelan xataa masiixiyaddaba ha ahaato oo qofku haddii uu leeyahay dareen diiniya ama wax aaminsan yahay waxaa laga yaabaa dee in waasicuun uu yeesho waxuun joojiyaan marka aad waa nidaamkan calmaaniyadda la ydhaha in diinta laga reebo dadka oo dhinacaa laga dhigo ama laadiiniga la ydhaha ama ilxaadka casrigan waxaa aada u soconaya waxaa la yidhahda ilxaadka oon ilaah iyo diintoona la rumaysnayn iyo aakhiro taasee aada u iibgaya waa qadiyaddan odhanaysa inuu qofku xor yahay oo uu xoroobo diin iyo ilaah iyo rasuul iyo aakhire iyo waxaa ka xoroobu socdo uun arrinta noocaasa waa gaalnimadii ay iibsadeen an yakfuruu bimaa anzala allah wuxuu ilaahay soo dejiyey ka gaaloobeen baqigu waa kibir waa xasad gardaro oo waxay xaasidayaan fadliga ilaahay uu siiyey cidduu doono oo addoomihiisa ah waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulullaahi muxamed ilaahay baa wuxuu doonay inuu fadligiisa siiyo waana addoomaha ilaahay marka ayaddu waxay caddaysay inuu ilaahay doortay rasuulka dee ma yuhuuddii baa diidi karaysa marka ayaddu waxay caddaysay waxa ilaahay uu siiyey rasuulka inuu yahay fadli weyn waa islaamnimadii diin kale la raacayaa ma jiro ina diina cinda allahi alislaam waa fadliga weyn dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli alcadiim alla wuxu uhi wakaana fadlu llaahi calayka cadiima ilaahay dheeraadku ku siiye wuu weyn
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إلهي فضل جيان حريص تكسي على جو فرحه أدون كيرورين يان دين لا وياش كاساك خير بضا ووح لجو فرحه وحينات المامية آيات أي مكفى إذا سنينا قفك فضل وين بيلها يصي سيدنا النبي محمد هبا كردقا كوجو فضل وبدن خلق إلهي هدنا أرنتا سينا كسارين من العبودية أدون مدي من عباده أي نتصنيس فضل با إله وكان فضل الله عليك عظيم فضل إلهي كسي وين إلهي دراتك كسي وين وحيجي وين قرانك وديمي كلام النسخ رسولك أو خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين حتى ما أنت صار من كما صار يسئن النقض رسولك من عباده إلهي أدوميز إنه إلهي الضون لماذا نبت أكو جرنسيا باب فضل جويننا رسولك صلى الله عليه وسلم مركي عبادة وبديي إلا يرمى تسك خفيفس سو كان إلهي كافر دم بجهرية كيد دم بكارلاف وحول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أو فلا أكون عبدا شكورا ميانا نقرين أدون مهدنقة إن أنا أدون مهدنقة أدون بان نقريا مهدنقة إلهي مهدنقة سبحانه وتعالى marka taasina mid weeye aad iyo aad u muhiima oo inaynu maaragtay ogaana ay tahay oo inaanay jirin adoonnimada dhaafi kara ma jiro darajo la gaaro waa taa qiimaha badan mar hadii la xaqiijiyo meel loo dhaafaa ma jiro maqaamada ama meelaha ugu qiimaha badan markuu ilaahay sifeeyay nabi maxamedna adoonnimadaas uu ku sifeeyaa tabaaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هذا بدن بتأخير كريس marka adoon oranayaan ugu adoonnimadan dhaafayo darajaan gaarayo ma cibaadeysto oo waxaas waa khuraafaad iyo dadka diin la'aan oo lagu baaqayo diintoon la diido dadka diin la'aan laga iibiyo oo cara leh fabaa'u biqadabin ala qadab walil kaafiriina cadaabun muhiin wa cara alla iyo dulli عذاب مهين عذاب كدلية إيا عراء الله أيا لقى دحلا إن علمك السماوي وقاية دين تإلهي لقى عراره أو لقى درك وحمركا رنتي أي تحقفك مؤمن كاينو آذو دريمو دين تن إسلام كإلهي الكانوا إنه أقول منا الشيغان أيو يهودنا كو إيديي قدوديك أي كقدين قيمها إلا هذا أما هذه يتشير رقم ماذا كلا وحيابيك قد وانت أما ديمها كلا كفر قمان هذا الدين دون الفطرة وديمها مركا لا دين تكليها أبورك وافقصا قفك بني آدم كي عادي قاسد لهاي أبورا ديانو لخلخلين الفطرة دي سي عادي هاي وسكندولي هاي وديمها الله يسوبر بردقو تكتاب تنسلام كو قادنا يا قف فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها قفك وسكا أقبلها دينتني waa diinta ilaahay diimaha kalena dadka wata ayaa sheegay inna diina inda allahi alislam waman ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin diimaha kale casrigan lahayo dadka la yiraahdo ku cibaadeysta waxay kaga duwanti waa diinul hadarati wat taqaddum waa diin horumar dadka horkacaysa horumar iyo ilbaxnimo ayaa horkacaysa waxyaabaha diimaha kale tilmuudkii yahuudda iyo baybalkii nasaaradaba dadku ay uga baxeen waxa kamid ahaa inuu horumarkii ka hor joogsaday inaga almasaalixul mursala wal manaafi'ul aama ayaa jirta oo dadka islaamku waxa uu leeyahay dee usuusha ku socdo ilaahina noo cibaadeysta adduunyadiina ka shaqeysta shay kasta oo dan u dadka diintu uba diidayso adduunyada hadii aan dee usuul kale iyo akhlaaq iyo waxba u dhimayn ساد رادت بإلهي ونسيدا يوحد وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه قلكا وحكو الصغان ودن والدين سخره انتفاع صدا ومصلحتي نية منفعاني ده كفايديست ودين عالمية والله لنا عرب كو غوني هاي يعيد قاري كو غوني هاي سهربا ينوسو أخرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دين التوازن ودين السبيل التريساء ruuxda qofka ku jirta iyo jirkiisa xiriirka uu la leeyahay khaaliqa iyo ku adoomaha la leeyahay xiriirka reerkiisa iyo ka diinta aakhiro iyo adduunyo
kan ka tago intan ku urur lama oran halka diinta nasaarada oo kale mesela ay oranayso dunyada la iska daayo fuqaraha la noqdo kaniisada la fadhiyo ama laga gabado xumaanta adduunyada ama dumarka iyo hawshooda iyo guurkooduba waa xaraam oo dib bay leeyihiin waa xarkaha shaydaanka laga dur alla wuxuu wabtaqi fiima aataaka Allahu daar al-aakhirah wala tansa nasiibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk iska shaqayso ilaahagana u cibaadayso oo yees jeedin dadka qaarkood waxay yiraahdaan ruuxduna la ilaaliyo jirkana la baqtiyo ruuxduna xaqeeda ay leedahay jirkuna xaqiisu leeyahay الصبغة الأخلاقية أخلاق ونكسر ما شاء الله هو إسلام نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحب الله يصدر يبقى أخلاق دي ونكسر إذا أنبياء أي لا إيمانيسي سأن أطلع ما يستره يا الهي يصدر وإنك لعلى خلق عظيم أخلاقيات وحياة أمها قرحية البحر ما كستها شيئا يعني أدون كستها هيان يهرو مركز ده مركز دتك أخلاق دو كتكت وفالح بعضنا حيوان كذا قاعد قال ما أنت قف كلنا ولا سرتي سهيا قرن كريا عبتي سيف والحمد أولي إذا قلفت جودي بأمرك الله يعذين عرورتي يدائرتي يتينيج كدتك الله يراد هلك وحمرين أيان وحيران بلدينها وحلق برا إنون حاجة أخلاقه هكذا هلانه دين تاني ذا وحلقيه لكريا فيها المقومات للحياة الراشدة نرشوا وناكسن معان لا لقيه لكريا ملك اللي لقوهين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء من السماء معناه وحوي يوحي شيء ساتتكم مركي لي ما دانا مركا إلى هنا براره ذي برواقضه بدنيس دين تنوى دين معصومة أرض ورصاص سيدو إلهي كسود الشيء نكوهينا القرآن كان كريم كي حديث كرسول صلى الله عليه وسلم وسيدو إلهي كاني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون متشرك كتاب عالم كاللغوها أيو حتى كوا لسو دشيه كلام إليهين أنه كوا نبان كوا أغانينا أي بربر دقيان إسلام أما هذا ما أنت لليه الله يسلق ده يسبربر صعدان يجا كمر خاتك عينا إلى شرين أنت أصو وقت اللي سوى بدلا لا صوت شفاي ولا صوت شراك عمال لقو قري عد ما أنت أرانا يسسدي نبي موسى لو صوت دشيا أما نبي عيسى لو صوت دشيا بوي هاي متشو إذا هنا هذا عجيبة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم يدنا إلا بدل ماها خلقنا إلا بدل ماها لا بد إلى هاي ودين سبحانه وتعالى لذلك بإسلام هو معصوم لكن ذلك مسلمين معصومين معه إذا مرك الله بدأ إلا يسكو قلدم معه وأنا الله بدأ قال هذا آد وقد دولان عيبها قف مسلمي ولا يهبيتوش كساران إسلام هو دين دورسون لكن ذلك كو أبتر سنة يدوي قلدم كرا سيدا قانون كود بويه قانون كود ضد بدن أو ده مواطنين تودا كم إذا بكبين شيء شبيه كحد قد بق مرك عيبت إلا قانون كود الله ما نسبيه قرآن كأنه نواساس وكلاية وحي كأنه يو ده ضد بدنا مسلمين الرجل لها ضمر لها ولاد لها ورا لي ويخل دمي كرا وح معصوم ده أنبياء ده إلهي باتشره حتى فكرة الشيعة والقبائل أئمة ده إيوه وداد ده دون معصوميه وقلط يعني الرسول شاهين حتى الصحابة رضوان الله عليهم هي قلدمي ولا لا كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون مركات دين تنوى دين معصوم ودورصون waxaa intaasii weheliya waa fariida in la raaco faral bay nagu tahay ikhtiyaarna balihi inaynu ka baydhno marka waxyaabahaas ay la gaar tahay diintani qofka muslimka ay markuu og yahay loo xayeysiin maayo lagana khaldi maayo diintiisa diimo kale oo baadil ah وإذا قيل مرك الله إلى لهم كوا قال ذا آمنوا رمايا بما أنزل الله القرآن كان إلهي وسودة شيء قالوا وحي الله نؤمن بما أنزل علينا أنه التوراة بانو كيغانينا أما إنجيل ويكفرون بما وراءه كتاب كي كدن بيننا يا القرآن كان وهو الحق وحق مصدقا لما معه وحو وافق سنيه كهيا سيدو وافق سنيه لبا ريموت بو نقون كرتايو انه حق يحي توراة أما إنجيل أما الزبور قرآن كانوا شيغيا ككتاب كتابها
waxyaabii kitaabkaasi uu sheegayay marka sidiisa loo daayay waxa quraankan uu sheegayana de waa laba kitaab oo samaawiya isdiidi maayaan laakiin ugama rumaynayo kamana waafaqsana wixii ay bedeleen waxa lagu xujeynaya falima taqtuluna anbiya allahi min qabl in kuntum mu'minin nabiyo hore disheena maxaa u disheena darun sheegaysaan marka ninka nabi hore dilay ma ka rumaysanayno kitaabkiisa sax ahaa oo anigu rumeeyay oo isagiiba dishay kitaabkiisa mahar baad u jiidaysa walaqad jaakum billahi wuu idin yimi dhabnibo muusa bil bayinat nabi muusa wuxuu idin yimi idin la yimi xujooyinkii cadcada thumma takhadtum waxa samaysateen inta kadib العجل دبقي أيا سميستين من بعده انت وتجي ورصينا وأنتم ظالمون إذن كون ظلم السمين إذن كون ظلم السمين أيا دبي سميستين بولا هيد عفوا بيناتك إلهي سبحانه وتعالى حصي إنه نبي موسى سيئي محيه وحجوين على العدوي مركا حجوين كاس وحي النقضان لبابا وين نقضان آيات كمعجزات كالله يقام أما الخاتيغة ورسول كرسول لمديس ودين نبي موسى إنه قرأنا إنه إلهي سيئي 9 آيات aayadahaas oo ay ugu sii cajiibsanayd u shii la yaabka badnayd siyaabaha kala duwan loo isticmaalay waa min albayinaat oo ay kamid ahayd gacantan kale uu hoos gelinayo oo dawala laclahu lambad ilaahay oo la siraaday oo markuu doonana uu de botton qabanaya aamusiinayo oo de aan iftiinkii lahayn yaba waaya waxyaabo kale oo ilaahay uu ku xoojiyay baa jiro da aynu soo aragnay oo dhagax u lagu taabtay oo deebiye ka butaaceen markay isxariifiyeen nimankii reer banu Israa'iil waa kii habaaray ilaahay uu farsalna calayhim duufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayat mufassalat wa ayat halkana ilaahay bayinaat waxa iska celin bakari waayeen xayawaana wama ya'lamu junuud rabbika illa huwa تكفي رأينا حريص إيه إنشير يرينا لقيلنا بل مقالة لنا تكفي سيداد ورانيس أما مقالة لنا إنشيره أما واحد قاد أودي يقول لك دقبا يضوفانا وريجيه تدحون ويا لهاي وحبوط تصي وحبي قادن لاي مركا بينات وهذه يتشارو حيو تاجيه الرسول كمثلا مركب لهاي صادرة معجزات وحيو تاجن توا خارق العادة وشيء جدت كان كوقن عين لها إنه الرسول كان الرسولي لما مركو الرسول كي لهاي صادرة هديو مركبة بلابة وحيجة يا آياتين ودتك وآخرية حديثيو دتك استجيب مرة ما يست آياتي سنة ما يسن معايا مركا واحد شيء يسين لقاطه وحكاه الرأي محي إن أديك لقو قاطه مركا إما كأديك لقو قنعينا تقف كل شيء يلا لقو قاطه لقو لقاه مركا سهرت هذا الكاغ نص عنايا مركا آياتها بينات waxay rasuulada ka dhaadhiciyaan dadkii baa la leeyahay bal karo kale ma haysan maya di hadeydaan haynin inuu rasuul yahay ku qanco waaye rasuul inuu yahay marka lagu qanco wuxuu yiri baa la rumaysanaya idan marka arin aad u muhiim ah weeye qofka wax sheegaya inuu ka fikiro horta isaga in laga rumaysan karo wax kastood sheegta aayadii xadiiska laga rumaysanay markay dadku ka shakiyaan adiga ama ay ku sanifsan yihiin ama aanay ku liqsanayn aanay ku aaminsanayn mar rumaysanaya waxyigii wanaagaad sheegayso ilaalinta kalsoonida ayay kalsoonida u beeraysaa marka bayinaadka marka mucjisaadkaas rasuulkii dadka ay ku qanciyaan ayaa wixii uu dadka u sheegay inay qaadanayaan lidalik baa waxa soo horeynay irhaasaadkii waxa ku xigaya bayinaadkii oo mucjisaadkii irhaasaadku waxa weeyaan muqaddamaadka waa hordhaca rasuulnimada sidii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam riyada uu arki jiray riyo arki jiray sida Aisha xusayso markaasay riyadaasi run noqon jirtay dadku waa ku rumaysanayaan markii dambana waxa bilaabmay dayixii ila soo kala dilaaciyay mucjisaadkii kale iyo mucjisadii weyneed quraanka
uma waxay sheegaysaa intii wax badan oo uu idinku qanciyo mucjisaad yimaadeenba haddana raggiinaa waaweyn ee ilaahay uu badbaadiyey ee ilaahay uu wax tusay dibi dul fadhiisateen oo samaysateen arrintaas waxay tilmaamaysaa canaadka iyo caqli xumada ayay tilmaamaysaa reer banu israa'iil idinka oo dulmi sameeyey wallahu subxaanaه wa tacaala aclam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وحين كنا حجرنا تفسير سورة البقرة آية الصدح يسغاشا قال الله تعالى وإذ وقت حص واذكروا waxaa xustaanoo dib u xusuusataan id wakti akhadnaa aanu qaadnay buu ilahay yihi miihaaqakum ballantiin warafacnaa fowqakum dushiina waxaanu dhignay aduura buurtii duurusiinaa dushiina la keenay khuduu baanu idin idhi qaata maa aataynaakum waxyiga aanu idin siinay biquwatin dadaal ku qaata wasmacuu maqla waxa la idiin sheegay qaaluu markaa yuhuuddu waxay idhaahdeen samicnaa maqalayo wacasaynaa diidni wa ushribuu waxa la cabsiiyey yuhuudda fii quluubihim qalbiyadooda alcijla ay xuba alcijl dibigay caabudeen jacaylkiisiibaa qalbigooda la cabsiiyey bikufrihim gaalnimaday gaaloobeen daraaddi qul waxaad tidhaahdaa bi'sa maa ya'murukum bi'sa maa shay baa xumaaday ya'murukum uu idin faraya bihi isaga iimaanukum rumayntiina noocaasi waxa idin fartay baa xumaaday in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin batihiin reer banu israa'iil dib buu ilaahay ugu noqday aada wuxuu ugu celcelinayaa rabbi ballan uu ka qaaday oo weliba ballankaasi waa miithaaq miithaaqu waa dhaar la adkeeyey oo xadhka lagu xidhxidhay sida shayga xadhigga loo xidho oo kale ayaa aada loo adkeeyey dee waxaa lagu waaninayaa oo la farayaa inay kitaabkii ilaahay qaataan markay warwareegeenna wax la yaab laaba ilaahay uu dul keenayoo arrin qasabaa ku dhacdo buurtii baa la dul keenay duurusiina iyagoo arkaya waxaa la farayaa oo arrintaana culayska loogu saaray inay qaadaan kitaabkii la siiyey biquwatin wasmacuu awood iyo dadaalna ku qaata ilaahayna wax ka dhagaysta marka isku dara baa la leeyahay dadaal aad samaysaan iyo ilaahay oo daacad u noqotaan biquwatin waa dadaalka wasmacuuna waa daacad noqda diintana labaasaa lagu wadaa haddaynu iska wada daacadno halkan aynu iska wada fadhfadhiisanno diintu mana soconayso lagumana dhaqmayo lamana tixgelinayo shaygan inaad ka daacad tahay mabda'aaga iyo naftaada oo aad u socotaa waa muhiim ood u howlgasho sida ambiyadii ilaahay ama rasuushii nebi maxamed uu soo khatibay ahayd daacadnimana way jirtaa dadaalkaagu hadduu nifaaq wato ama aqraad kale wuu iska fashilan yahay sidii cudurkii munaafiqiinta ku dhacay labadaasaa la faray waa kuwii sujuuday markaasoo aynu hore usoo xusnay inay isyar marooriyeen markay sujuudayeen aimada qaarkood waxay idhaahdaan haddadan waxay aaminsan yihiin sujuudda ugu qiimaha badan inay tahay sujuudda sujuudda dadban bay idhaha ismarooriska ah oo waxay leeyihiin faraj baabaan ku helayoo waa tiina lagaga daayay buurtii nagu dhici lahayd markaa mudaaraad fi sujuud inay qalloociyaan saasay ayay waxoodoo dhammi u qalloocaan halkan ilaahay uhi yuhuuddu markay ilaahay u jawaabeen waxay idhahdeen samicnaa wacasaynaa culimada qaarkood waxay idhaahdaan samicnaa afkay ka yidhaahdeen wacasaynaana ficilkay ka yidhaahdeen oo intay yidhahdeen ilaahay ow naga daa ballan qaadnayoo maqalaye ayay haddana iska weydaarteenoo waxay doonayaan bay sameeyeen taa way idhahdaan culimadu laakiin wax diidayaa ma jiro inay afka ka idhaahdaan intee oo intan ka daran bay idhaahdeen imisoo hadal oo ka xun ayay yidhaahdeen nebigii oo ag taagana ilaahay maqlayaan bay idhahdeen arina allaha jahra ilaahayna tusi naxnu abnaau llaahi wa axibbaau ilmo ilaahay baanu nahay bay idhahdeen ina allaha faqiiru wanaxnu akhniyaa ilaahay baa faqiira bay idhahdeen intaasoo hadal oo xun bay idhaahdeenoo tan ka sii daran lafdiga had iyo jeer
waxa lagu xambaaraa daahirkiisa iyo sida muuqaalkiisu iyo waadixa ilaa la helo wax ka duwa marka labadaba way yiraahdeen samicnaa wa casaynaa bay yiraahdeen nasiib daradaas ku dhacday inkaarta ayaa ku dhacday markay kuwan quraanka sidan ilaahay uu ku eedeeyay wuxuu ku amaanay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii iyo awliyadiisii iyo muuminiintii inay iyagu yiraahdeen maxay سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سورة آخر كذا كآخر وأماوي إلهي بقى إنه جمر خاتك عايز سبحانه وتعالى إن كده ذا لو يمرك أحي شيء سامرك آيات إن إلهي لقى قدون توحي جيس ذاتك قول كودي فعل كودي يسوافق صناعه حتى إنك وردي إنه قرآن كأنه آخرية إنه إنه كعبادة سنين إنه لكن فعل كأنه وعصيناه هاي كور وحيجي على كايا لأنه كل عبادة سنين تفسير كيسير دقي سنين كل قناة نشري دولتي أنا كل رقمين وان قبيلة دي كل رقمين وان شركات دي كل رقمين وان كل رقمين قيسكي وان وقفكي كل رقمين سمعنا ويته لكن ده عصينا على صعوبة فعلك أرين كان وحلا قال قفك الذي يسوي يسوى فخسير لما تقولون ما لا تفعلون وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه سوافقين قولك هي فعل كويس سوافقين سيدا لها أصحابته وكوا ماري وحوين وي إذا أرنتها سوا مهم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إسلام كوضا قالوا وضا قاتبوا لهي ومنها كان كالهرين سمعنا وعصينا إلهي وكو إذا يكوى عيبها إلهي وحكم إذا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ألك إلهي كتشعلان لها كتابك كتشعلان لها رسوشيس كتشعلان لها دبي بيتشعلان جعيل ولبا آدو بدنا الأوران كره قلبي وذا عبي دبي طبعا ده قلبي ما عبي كره وده وحكوس كوسان وحوين أربوغه على حذف مضاف بالله الضروري وحلا سوق قدره وحو قلبي وعبي كره وجعيل شعيل بي بهالكاو قبين آدو بدن سيدي مركا النبي يوسف سيدي سيبا كجرتي قد شغفها حبا قبل يدا امرأة العزيز تراود فتاها إن كيف جعلت حافظة إذا شو جايب كوحن تدمر قد شغفها حبا وتقلك وضنه وقلي ودنها يكون ردت إذا قفك بني آدم كهدو وحجعلاده ولا قلت المام كراسيدا نسكو إذا برا بلاغة بدن إنه قلبي يسعب وين جانا إنه أنا كهبل سوما هبل بو عبسية هبل بو عبسية هبل باكر حد لي كورينا عبس أيو عبي حديث كي ضعيف كها يسقنا وحب تلمامي حكمة ها حبك شيء يعمي ويصم هذا وحش علاته وانا ذي كين دباليس وكين دباليس وانا تكون دباليس لقال أنا إن دلان قف صعونية مركز ده سوي الله بالله والله نسكوح نبري أما إلى هي تعلان يسا أما وحي كسور كذا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي مركز وحو دليلكم إن قولت لنا يا قرآني حديث بالله ينفريا إن لابتن لبا ما ودا غليانه jacaylka inuu ku disayno caruurteena aynu barayno ee dadka lagu tarbiyeynaya oo iimaanka ah inuu noqdo ilaahay iyo rasuulka iyo xaq iimaan ma yeelanayo qofkaan inta jeclaan waay marka waa ceebayno nimanka rasuul haya ee aayaadkii mucjisaadka haya ee kuwii la akhriyay haya هذا ندي بقادول يورس أد بوجو حناق النبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سيدا يجوا سفر كتير وحيران اجعل لنا ذات أنواط سيدا إنما كا ولا يهين دري سافها يرمر مريانة بركيستان بلا نقول نجيدا ويرى بركيستان النبي محمد ناصمه أد بو حناق النبي وحكر جنت يقول سيدي النبي موسى قال دي سيأوي هذين اجعل لنا إلها كما لهم آله وما عابد يقار وحابودا inta soo mareen bay dhahan bal annagana ilaah noo sameey marka waxay culimadu yiraahdaan waa raadadka gumaysigu leey gumaysigu dadka rabaayadu ka xumeeya waanu jaanjaamiya waxyaabaha uu ka kharaabiyay ugu weyna waxa kamida fikirka wanaagsan iyo aqeedada lidalik ba ilaahay uu ku eedeeyay fircoon qoladiisii ba markuu u khudbadeeyay ayaa waxa ilaahay uu fastakhaffa qawmahu faata'u واستخفاف وفضيصداه كاسو ما اسكا اقبلان واسوسايا سامها ميانا سيدان ahayn waaye way noo dhant idan marka gumaysigu raad xun buu leeyahay qul bi sama ya'murukum bihi iimanukum in kuntum mu'minin iimaanka ku faray arrimaha noocaas ay dib caabud falxuma
مؤمنين ما يهدين ما كنتم مؤمنين إنا فينا وين قنكرتا ما كنتم مؤمنين هدا مؤمنين بتين واسدا شيغان إيسان تاسنا يدنا وح مارتين إلهي وكأن في وي إيمان كاس مؤمنين بانا هين قف إيمان لي وحا شيء قاحوا لكم الدور صدا حق قال الله تعالى إلهي باوحد قل وحات هذا النبي محمد إن كانت لكم هدية أيدين سقناتي الدار الآخرة دار تدنبوت شنذا هدا الذي يهودي عند الله الرب أكتيس أهاتي خالصة هدي أيدين قونتهاي من دون الناس ضدك كلال أنتو هدا شنذا كالجين لادهين فتمنوا الموت جارد الضارع إن كنتم صادقين هدارهم شيغيسان ولن يتمنوه أبدا جارد إيادي مشهد ولقود دوني مايا بما قدمت أيديهم قعمهود وحي هرم مرسدين درادي وحكوه الرئي أوجي والله عليم بالظالمين إلهي الظلم فلياش آد بوجي ولا تجدنهم وأتكهلي دونتا يهودا أحرص الناس ضد أردن يقود دال بديهين على حياة النلل ومن الذين أشركوا كوي قال ذاها عن كتاب لهين ويكسين نلل شعلهين يود أحدهم مديا كمدا يهودا وحو شعلها لو يعمر إلا عمر السياء 1000 سنة كن سنة وما هو أرنكم ما أهان بمزحزحه بدو كبد بادين يكاه من العذاب عذابك كمبد بادين يسه أن يعمر إلا عمر السياء كن سنة عمره يسلقه والله بصير إلهي وأركيا وكما قرصونا بما يعملون ضدك وحا أي سمينيا أي عمل فليا يهودا خرافات كودا يا كبر كودا يسقن عنتودا وحا كمدها oo ay oran jireen aakhiro nasaaraduna deewaabay sida quraanku ka warramay ku raacsanaayeen waxay oran jireen la yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara jannada ku salaaxi maayo oo gali maayo qof yahuudiya iyo qof nasraaniya mooyaan hadal ay ku midaysan yihiin maaha laakiin yahuuduna gaarkooda ay oran jireen kuwan kale nasaaraduna gaarkooda ay oran jireen oo shaydaanka ayaa ka dhaxadlayo taa u laqimay oo u sheegay sidaas ay oran jireen xadiidka saxiixiisu tilmaamaya nabiga calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadeen waa kuwii taa la soo hor fadhiistay naarta ayaa galaya waxay dhahan nakuunu fiiha yasiiran uma takhlufuuna in yar baan ku jiraynaa intii aanu dibiga caabudnayn laagad kadibna muslimkiina noo weydaaranaya beentaasaa ilaahay uu shaybaadhkeedii sameeyey beentaasaan idiin sheegayaa ku shaybaadha sidan inay beentaasi aanay ka dhab ahayn dee nin jannada ku qanacsanoo inay diyaar u tahay jannadii halkaa u diyaar tahay ka ogsooni dee geeridaba uu iska taminiyaya leannu rafaadka tanuu ka baxaya sida rusushaba dhaqankoodu ahaa oo rususha ilaahay markay sii dhimanayaan waa la door gelin jiray in dee adduunyada uu sii jooga iyo in kale markaasuu aakhiro dooranaya siduu nebiguba dooranaya calayhi salaatu wasalaam markuu sii dhimanaya caaisha inooga warramayso waaya haddii ay aakhiro oo looga jeedo jannada idiin khaalisto idiin gooni tahay geerida iska doonane haddaa ku run sheegaysaan jannadaa noo gooniya ninka janno isku hubaa ha iska dhaadhaco ilaahay owna dil dhaha sidaas wey islaamkeennu iyaga tan dhaabad baa looga dhig waa taxaddi baa la ydhaha dhaabad bay ku tahay waa lagu hor joogsanayaa macnaheedu markaa waxa weeye ma tamaniyayaanoo dee aayaddaaba caddays laakiin beentoodun baa lagu shaybaadhaya caddaynaysa diinteennuna ma ogola inuu qofku geerida tamaniyo midkiin yuu geerida tamaniin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam lidurin nazala dhibaato ku dhacday daraaddeed ayaamuhu sii joogo ayaa dee fursad iyo jaanis u ah qofka mar kasta oo cimri ilaahay uu ku siiyo fursad bay kuu tahay inaad ka faa'iidaysato wey ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين يجا أكسون وحي دنبي جيستينو كهر رأي عقاب كي نارها كهر رأي نمكو كتاب كي بآخره أنا ويسيليه يعني يهودي وجين على آخره وحبولي مركب متمنية يعني جيري ده متمنية تاسوامد جيري واحد تمنية قفك بلنقات كي لها هيستا هيستا وحكهر رأي أنا ويجي تاسوامد مد الله بارك اللي في سين أنا جيري تمنية وحوي
adduunka marka la isu geeyo dadka jooga waa nimanka ugu nolol jecel bulaay waa nimanka ugu nolol jecel lidalik baa wasiilo walba iyo wado walba ummadaha ku dadaalo weeye in loo maro sidii loo noolaan lahaa ummado dhan waxaa loo gubayaa oo loo sunaynayaa oo loola dagaalamayaa noloshooda inaanay taataabanin ayaa ay ugu dadaalayaan cilmiga caafimaadka adduunyada dadka ugu horeeya barta wey bal si ay u noolaadaan si ay dhakhaatiirtoodaas u daweeyaan ha ka yaabin waaya walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaa erayga calaa xayaatin waa nakiro waxyaabaa loo nakireeyana waxaa ka mid ah yaraan shaygaas uu yaryahay calaa xayaatin nolol kasta walow xayaatun maca dul nolol dulaysan ba haata haddii la idhaahdo cisi baad ku dhimanaysaa mise nolol dulaysan me aniga nololunba ii daran bule haba iska dulaysnaatee ila geeriduba mar bay nolosha dhaantaay qofka muslimkaa wuxuu aaminsan yahay noloshaa dulligaa inay ka fiicantahay inuu shahiido oo dee ilaahay agtiisa shahaado u helo calaa xayaa nolol kasta noocay doonaysaa min ayi nawcin kaanat wa min aladiina ashrakuu waa kuwii aan kitaabka haysanoo dee iyaba nolol way jecelin gaal oo dhami nolosha wuu wada jecelyihin adduunka maanta haddii la heli lahaa kiniin laga liqo geerida walla kaasaa u qaalisanaan lahaa wax kasta oo la hayo waa la siisan lahaa laakiin ma jiro see u fikirayaan waxa weye midkood wuxuu jecel yahay an yucamara alfa sana 1000 sano in cimrigiisa laga dhigo wamaa huwa bimusaxsixi min alcadaab arrinkuna waxa weeye inaanay ka nabadgelinaynin cadaabka an yucamara in la cimri siiyo 1000 sano kama nabadgelinayso cadaab sidee uga nabadgelisa 1000 sano haddii cimriga yahuudiga ama gaalka laga dhigo dee waxa uu sii kordhaya un camalkiisii xumaa khayru nnaasi man daala cumruhu waxasuna camaluhu dadka waxa u khayr badan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka cimrigiisu dheeri camalkiisuna wanaagsan yahay wa sharu nnaasi man daala cumruhu wasaaa camaluhu waxa u xun dadka qofka camalka cimrigiisu dheer yahay camalkiisu xun yahay kaasuu bay dee noqon lahay munkasana maxay u kordhinayaan iimaan la-awo waxay u kordhinayaan shar calaa shar noocyadiisa kala duwan bay u kordhinayaan idan markaa arrintu ma aha cimri badan laakiin waa camal wanaagsan cimri badan ma aha laakiin waa camal barako leh cimriga intuu ilaahay kuu barakeeyaa ku xisaabtan leh laakiin cimri badan ilaahu cimriga noo dheeree lifaaq raaciyo waxaad tidhaa ilaahu noo barakee cimri dheer waxaa odayaasheenii hore odhan jiray iyo camal wanaagsan wax fiican bay ahayd intaa lifaaq bay u samaynayaan cimri dheer iyo cuud iyo caruur mid walba barako ayaa la raacaya bal nebiyada oo dhan ducadooda eeg barako iyo khayr iyo waxaa la raacinaya lifaaq idan waxaa halkan inooga muuqda ummadaha waxyaabaha haziimada ugu wacan iyo wahanka iyo daciifnimada inuu ka mid yahay waxaa la yidhaahdo adduunye jacaylka iyo geeri nacaybka nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddan wuu la hadlay kuwooda hore iyo kuwooda dambaba weliba ummadaha soo socda wuxuu ihi waxaa dhici doonta in ummadaha adduunyadu isugu kin yeedhaan calaa macna alxadiid markaynu af soomaali ku sheegna xadiid ummadaha adduunyada isugu keen yeedhan doona kamaa tadaaca alakalatu calaa qascatiha siday had iyo jeer xeedhada la wada cunayo dadku isugu yeedhaan war kaale edna nala cun kaale edna nala cun asxaabtu way yaabeeno waxay dhahaan maalinta awa min qilatin yaa rasuula allah miyaanu yarna muslimku maalintaa miyuu yari maya bi antum kaiir walaakinakum guhaaun ka guhaa'i sayl ma yaridina waa badan tihiin laakiin waxaad tihiin daad xoortan daadka oo xumbada daadka oo kalea tihiin ayaa tihiin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam asaabakum ulwahan waxa idinku dhacay buuhi xanuunka la ydhaha wahankaasi muxuu ahaa bay dhahan wahankaasi daciifnimadaas wuxuu nebigu uhi xubu dunya wa karaahiyat lmowt adduunyo jacayl iyo geeri nacayb iyadoo dulaysan tihiin ba adduunka saa usii qaniinsan tihiin ayaa laydin dulaysanaya laydin shukulaya almuhim markaa kolka dib loo eego labada arrimood ee ugu muhiimsan waa adduunyo jacayl ee muslimka dulaynaya waa min asbaabi alwahan waxa ducufnimada iyo dullinimada waxyaabaha keena waxaa ka mid ah adduunyo jacayl iyo geeri nacayb waxaa ka mid a bay leeyihin culimmadu waxyaabaha had iyo jeer keena wahankaa isaga ah iimaankoo daciifa dacfu liimaan nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن كقوي أيا إلهي وكتشعل كالضعيف توهم كل عام مركاد قوة الشيء يروى قوة إيمانك قوة مرقية كوسنا هيد معها وقوة عقلك هي قوة فهمك هي قوة علمك هي قوة إيمانك وحيابها وهن كان وحكم إذا التنازع والاختلاف والتفرق كلكعة مسلم وكلكعة فرار رؤية شيء سفكرون واي يقرأوا ولي بدنا نتشيسته إلهي بكدي قوي ولا تكونوا كالذين تفرقوا ضد بلنبا الدنيا صامرة اسخلافات شويها لم يدقننا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يا إذا فشل من هنا ودي نتجينه هاي اسخلافنا هكذا تجينا بالله سبحانه وتعالى ومن أسباب الوهن من أسباب الوهن وحيابها كان إن أمره ضعيفة ولما أمضى إسلام وحكم بذا التربية السيئة على الرضا بالذل إن هذه شر أمضى الله ربيه ولما دائر توضى صاك عيسى إن إسكالق بصلاة إن إسديبان وتلها على برجع روح الله ربين شر قفك مسلم كا إنه يهاي قف يسجى الدين تسوايس الرئيس يوم من الأيام نقال كات كان دور قسطنطينية هل كلا يقول لك لو نشري برجع ورا اسطنبول لنا سديت بقول السنة لسوقي إن لا فرة نبي قلنا كسي بشارة عليه الصلاة والسلام نند اللي يرى فرت كفيقي كم إذا ضدك مسلمين تهلك تشجع عثمانيين تي أنا فرند ونبي هلك إن شاء الله تعالى سيد أنا إلهي ونبي سبحانه وتعالى لكن دايرتين يدك أنا مركز قلبي وقش بله لقول ربي أيوه هذا هو دبلي لفكات هذا الدنيا ده سوكر يستات هذا قوة صدحات بات هذا رقبة ماشى وحرنت هذا قوة سنبا لقى حد وحنا مركز ضدك تعليم الله وش يجوا الكتراد الله وش يجوا ما ملك الله وش يجوا قرب يسوي آخر توسية ساسو ما يقولنا كل رواحية وحكم إذا بيلين علماء مصاحبة المخذلين إن ضدك لا وتنهرب بقى ما لا رعسنت هاي إن ضدك هذه شر وحدولين يا وقفك كأجد وهذا وش الشيء اللفتيسي وهي ليه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه النبي الله عليه الصلاة والسلام كوصل ريال لقى مصر ريال وحكم إذا عدم الاستعداد إن أنا ندتك بالديار قرابة ينبع إلى هاي ندتك يسجل الرمية أو الذي ساو الله الضباغ بوجه وحلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم قال يا منافق بقى هعب صدانا أودينا الديار سدب الله كأن الله هذا يواكي يجا أبوري إننا إن أبوري الدون كان إسكالها ضد كان سدوا كان تعلي ناشئ مركز ضد كوا مركز إلهي قادم وياه وأنا الديار بهاينو سيد عيسى كويا على الله أنا دلك قبل حلاين الضعيف أنا إلا الديار هو من أسباب الوهن وتم حب الدنيا وكراهية الموت عكم إذا جهلك أقنت واحد بدن بأمة ذكروا قادا عيسى جودا شرفت هذا تاريخ ظهر وقف جوجي هاي تاريخ دي أمة هورا تاريخ دي أصحاب تاريخ دي ضدك مسلمين تاي الهاين علم واحد بدن بضدك كروا قادا وحبراه وحلا كلام عاشا يوقف جوجانية يوحي السعودية يوحي النولية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ذاتك علم قال إلهي وقرية سبحانه وتعالى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قفك إلهي وخير للدار وعيسي وكمدها لهي دين تفهم سياب النبي الله عليه الصلاة والسلام إذا مركز جهل قنا وأسباب وهن ككيانة ومضى إسلام كان وحيابا لقد الله يستوحى كمدين آد لو قلت دلاله إن أنا دين توضبرانين إن أنا دين توضبرانين وقرآنك إيا قيمك لها إيا السنة الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام إيا السيرة ديسي إيا التاريخ ديسي ضدك مناهجته أنا لو قرينا لقد دركيه الله يرى هذا إرهابك إيا أرقق حسادة إيا وحاسا كبرنا إسانا بل إسكير يا رايا ماشان سيدنا كنت ضدك إيرين كقد اللعيها وهالكاس بكلينا بل إنها خفيفية المهم كل هذه وحي كمدهين من أسباب الوهن مركا وحي نوغيسي waxaad ku heli doontaa inay yihiin nimanka ugu nolol jecel noloshaas dulliba ha wadato almuhim marka dadka muslimiinta laakiin ciisigooda iyo diintooda ayay dareensan inay ku nool yihiin ilaahayna waxaynu ka baraynaa ciis iyo sharaf iyo wanaag inuu nasiyo dhamaanteen iyo muslimku meel walba joogaba wahada ma aquluhu astaghfirullah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam